halkan waxaynu ku duubaynaa barnaamij cilmi baadhis higaada dhawaaqa iyo dhigmada af Soomaaliga. Dhawaaqa, dhigmada iyo dhismaha afka hooyo. Qaybta 6aad, shaxda dhiska weedha, bogasho wacan iyo kulan kale. Waa qaybtan oo aynu kaga hadlayno sida aynu weedha u samayno. Af Soomaaligu wuxuu la wadaagaa afafka codadka aanay iyagu wadaagin. Haddaynu eegno sawiradan oo mid Laatiin yahay midna Carabida, dhawaaqyada halka ay ka soo baxaan dhuunta iyo hanqalaalka iyo cirridkaba way ku kala duwan yihiin, laakiin af Soomaaligu intaba wuu la wadaagaa dhammaantood. Waxaad arkaysaa markaa af Soomaaligu inuu ka qoto dheer yahay afafka intooda badan. Aynu eegno haddaba dhiska ama shaxda dhiska weedha afka Soomaaliga. Af kasta oo jira si u gooni ah ayuu ereyada qaybahooda isu raaciya. Afka Soomaaligu wuu ka duwan yahay afafka kale sida uu ereyada u kala saaro qaybaha ay ka tirsan yihiin. Afka Soomaaligu wuxuu ereyada isu raaciyaa godka ay wadaagaan iyo sifo kale oo dheeraad ah. Dhiska weedha, intii god gaara gashaaba magac ayay wadaagaan aan ka ahayn kuwa god wadaagga ah. Haddaad fiirsato shaxda weedha iyo qaybaha hadalka. Weedhu waa hadal macno samaynaya ama nuxur la tabinayo. Weedh marka la samaynayo waxaa la adeegsadaa 14 god. Waa markaynu ka hadlayno afka Soomaaliga, kuwaas oo ereyada qaybaha ay ka tirsan yihiin midba god u gaara leedahay, waxaanay u kala hormaraan si xeerka naxwaha waafaqsan. Afka Soomaaligu wuxuu ereyada isu raaciyaa godka ay wadaagaan iyo sifo kale oo dheeraad ah. Dhiska weedha, intii god gaara gashaaba magac ayay wadaagaan aan ka ahayn kuwa wadaaga godadka lacsima guurka. Godadka uu ka kooban yahay dhismaha weedhu waa 14 god. Sidaad ku arkaysaan sawirkan, godka 1, godka 5 iyo godka 14aad. Ereyada galaa way isku bedelmaan ama ereyadu godadka 3 ah kay doonaanba way geli karaan. Godka 2 ilaa 4 isma weydaartaan ereyadu, ka 6 ilaa ka 13aadna sidoo kale xiriir bay u socdaan, isma weydaartaan. Godka 1, 5 iyo 14aad waxa aynu odhan karnaa ama waxay yihiin waa godadka lacsima guurka ama way lacsima guuraan oo waxay ka tagaan godka 1 ama 5aad ama 14aad kii ay rabaan. Waa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan waxaan oo goda afkeena ma ku jiraa. Runtii way ku jiraan, waanaynu ka faalloon doonaa. Waxaynu haddaba eegan doonaa weedhahan dhammi waa sax, waa isku macne, waa isku ujeedo, waa isku mid, laakiin waxay ku kala duwan yihiin midba ereyada qaar ayaa soo horeeya. Haddaad eegto ta 1, hashii libaaxii ayuu si xun ugu dhaawacay xeradii shalay. Libaaxii si xun ayuu hashii ugu dhaawacay shalay xeradii. Shalay ayuu xeradii si xun ugu dhaawacay hashii libaaxii. Libaaxii xeradii ayuu hashii ugu dhaawacay shalay si xun. Libaaxii hashii wuxuu si xun ugu dhaawacay xeradii shalay. Libaaxii si xun wuxuu hashii ugu dhaawacay shalay xeradii.
shalay wuxuu xeradii si xun ugu dhaawacay hashii libaaxii. Libaaxii xeradii wuxuu hashii ugu dhaawacay shalay si xun. Waad aragtaan 8 ayaynu ka soo qaadnay. Way samaysmi karaan qaar ka duwan ama ka badan intan, laakiin hadalka aynu sheegaynaa ama weedha aynu sheegaynaa waa isku macne, waa isku ujeedo, waa isku mid. Qof kastaana si kastoo loo yidhaa isku sibuu u fahmaya. Maxaa keenay haddaba sababta inaynu intan oo dhan isweydaarin karno oo uu noqonayo haddana af si saxa loo yidhi? Dadka qaar waxay ku odhanayaan afkan maaha af la baran karo, sababtoo ah sharciba male. Haddaba aynu u soo noqonno afka. Haddaynu eegno shaxda ereyada af Soomaaligu waa sirta maqan ama waa waxa ka maqan inaynu kala garanno ereyadan aynu kolba mid sidaynu doonno u dhigayno ama u soo horreysiinayno inaynu baranno. Waana ta aynu doonayno inaynu ka hadalno. Dhigo haddaba weedhahan dhammi waa sax. Waa weedhihii oo aynu bal si kale u kala dhignay. Waxaynu doonaynaa inaynu kala durkino sida ay isu raacayaan ama sida ay u samaysmayaan. Libaaxii hashii ayuu si xun ugu dhaawacay xeradii. Waxaynu u kala goynay 5 qaybood. Libaaxii si xun ayuu hashii ugu dhaawacay shalay xeradii. Shalay ayuu xeradii si xun ugu dhaawacay hashii libaaxii. Libaaxii xeradii ayuu hashii ugu dhaawacay shalay si xun. Libaaxii hashii wuxuu si xun ugu dhaawacay xeradii shalay. Libaaxii si xun wuxuu hashii ugu dhaawacay shalay xeradii. Shalay wuxuu xeradii si xun ugu dhaawacay hashii libaaxii. Libaaxii xeradii wuxuu hashii ugu dhaawacay shalay si xun. Aynu eegno haddaba maxaa isbedelay, maxaa qaldan, maxaa aynu arag. Waxaynu arkaynaa qaybta labaad in ay yihiin erayo aan isweydaaranayn, halkooda taagan. Qaybta koowaad ereyada ku jira waxay u wareegi karaan qaybta aynu dhexda ka dhignay ama qaybta u dambaysa. Ereyada qaybta afraad ku jira isma beddelaan. Waxaynu arkaynaa inay markaa tahay erayo gaari inay guuraan oo ay tagaan meel kale. Dhigo haddaba weedhahan raaciyaha isbedela waa sax. Qaybta labaad waxaynu sii kala rognay 5, 6 baynu ka sii dhignay. Hadda waxaynu kala saarnay 2 erey oo aynu isku darro oo ka labaad iyo ka saddexaad ah oo laakiin 2 erey kala ah. Haddaa tagaa markaa libaaxii hashii ayuu si xun ugu dhaawacay xeradii shalay. Libaaxii hashii wuxuu si xun ugu dhaawacay xeradii shalay. Libaaxii hashii miyuu si xun ugu dhaawacay xeradii shalay. Libaaxii hashii ma uu si xun ugu dhaawicin xeradii shalay. Libaaxii hashii wuxuu si xun ugu dhaawacay xeradii shalay. Libaaxii si xun wuxuu hashii ugu dhaawacay shalay xeradii. Shalay wuxuu xeradii si xun ugu dhaawacay hashii libaaxii. Libaaxii xeradii wuxuu hashii ugu dhaawacay shalay si xun. Qaybta hore afarta ah waxaad aragtaa ereyga laaciyaha ama ereyga keena
ujeedada ama dulucda hadalka aada uga jeedo inay kolba mid qabsanayso, waana ereyada qaybta labaad gala oo ah kuwa aynu laacyaha odhanayno. waxaa ka mid ay, waxa, mi, ma, waa ereyada noocaasa. qaybta hoose waxaad aragtaa in haddii ay iyagu taagan yihiin oo kuwa kale dhaqaaqaan aanay isku samaynaynin cilad. marka qaybta sare waxay ina tusaysaa in ereyadaasi ay isbedeli karaan oo mid ka midii uu bedeli kara ka kale ama la gelin karo halka uu ka kale ku jiro. qaybta hoose waxayna tusaysaa iyadu ereyada guurguura inay kolba qayb geli karaan ama qaybta dhexda ama qaybta u dambaysa ama qaybta hore. dhigo haddaba ujeedada mudnaanta ereyada. waxaynu ereyada haddaba marna dhexda u gelinaa, marna horta, marna ay gadaal u maraan. weedha markaad ujeedadeeda caddaynayso waxuu qofku tilmaamayaa ereyba ereygu ka soo horeeyo inuu mudnaanta sheegidda ka leeyahay. libaaxii hashii ayuu si xun ugu dhaawacay xeradii shalay. adigu ujeedadaadu waa isku mid tahay, ayaad haddana soo horreysay libaaxii iyo hashii, marka hadalkaagu way ka mudan yihiin xeradii iyo shalay. libaaxii si xun ayuu hashii ugu dhaawacay shalay xeradii. waxaad mudnaanta siisay libaaxii iyo sababtii uu u dhaawacay si xun ahayd, hashii oo aad dhexda gelisay, iyo shalay iyo xeradii oo u dambaysa. shalay ayuu xeradii si xun ugu dhaawacay hashii libaaxi. waad aragtaa hadalladu waa isku mid. libaaxii xeradii ayuu hashii ugu dhaawacay shalay si xun, laakiin marka aad u fiirsato dareenka qofka ay gelinayso wuxuu kala leeyahay dareenno kala jaad ah. afafka kale ma leh oo isku sibaa loo yidhaa, iyadoo dareenkaagu uu kala jiro oo ama aada libaaxa u jeedo inaad ka hadasho oo hadalka dambe raaco, ama shalay aad ka hadasho ama xerada ka hadasho kaa doonaysa aad horreysiiso. laakiin afka soomaaliga wuxuu leeyahay wuxuu horreysiiyaa ka uu kolba dareenkiisu sheegaya inuu mudan yahay. libaaxii hashii wuxuu si xun ugu dhaawacay xeradii shalay. libaaxii si xun wuxuu hashii ugu dhaawacay shalay xeradii. shalay waxa uu xeradii si xun ugu dhaawacay hashii libaaxii. libaaxii xeradii wuxuu hashii ugu dhaawacay shalay si xun. waad aragtaa kolba dareenka qofku inuu doonayo soo horreysiyaa uu ka mudan yahay ka kale sheegistiisa ama hadalku siduu u socdo. saddexdan qaybood waa qaybta hore iyo qaybta dhexda iyo qaybta dambe oo ah kuwa ay kolba ereyadu u guurayaan. hadalkuna waa isku mid, laakiin qofku wuxuu u qaadanayaa markuu guuro inaan weedhu samaysmi karin, laakiin weedhu way samaysantay, laakiin ereyadana kolba mid xagga hore ama xagga dambe la geliyaa, iyadoo ay ujeedadu tahay iftiiminta kolba dareenkaagu halka uu ku socdo. dhigo haddaba dulucda weedha. maxay tahay haddaba dulucda weedhu? aynu eegno weedhan u horeysa. libaaxii hashii ayuu, waxaynu calaamadina hashii iyo ay markaad isticmaasho waxay ka hadashaa ereyga ka horeeya oo dulucda hadalku yahay. libaaxii hashii ayuu si xun ugu dhaawacay xeradii shalay. libaaxii si xun ayuu hashii ugu dhaawacay shalay xeradii. si xun
ayay dulucdaadu tilmaamaysaa hadda. Shalay ayuu xeradii si xun ugu dhaawacay hashii libaaxii. Waad aragtaa ay inay tilmaamayso shalay. Marka dulucdu had iyo jeer ay markaad adeegsato ereyga ka horeeya ayaa dulucda hadalkaaga ku socda. Libaaxii xeradii ayuu hashii ugu dhaawacay shalay. Waad aragtaa inay xeradii tilmaamayso. Ay markaa waxay tilmaantaa ereyga ka horeeya. Haddaad adeegsato laaciyaha ay, libaaxii hashii waxa uu si xun ugu dhaawacay xeradii. Waxaynu adeegsanay hadda laaciyaha waxa. Isagu waxa uu dulucda u jeediyaa ereyga u dambeeya ee hadalku ku dhammaado. Libaaxii hashii wuxuu si xun ugu dhaawacay xeradii shalay. Libaaxii si xun wuxuu hashii ugu dhaawacay shalay xeradii. Waad aragtaa waxa markay timaado ereyga u dambeeya ayaa dulucda hadalku ku jeeda. Shalay libaaxii wuxuu xeradii si xun ugu dhaawacay hashii. Waad u jeedaa inay waxa tilmaamayso hashii oo ah ereyga u dambeeya ee meesha soo gala. Marka ay waxay tilmaantaa ereyga ka horeeya haddii aad adeegsato. Waxa haddaad adeegsatana waxay dulucda u jeedisaa ereyga u dambeeya. Way isbedeli karaan labadoodu, waana isku sida loo adeegsadaa. Libaaxii xeradii wuxuu hashii ugu dhaawacay shalay si xun. Waad aragtaa inay waxa dulucda u jeedinayso ereyga u dambeeya ee si xun. Shaxda weedha iyo qaybaha hadalka. Haddaynu soo qaadano sawirkan oo tilmaamaya 14 good ee weedhu ay geli karto ama ka koobi karto. Waxaynu haysanaa godka koowaad oo aynu oran karno matalan baarlaac ama la laacinayo ka horeeya, ama godka shanaad oo aynu oran karno boglaaca, ama godka 14aad oo aynu oran karno beerlaaca, si aynu u kala garanno godadka saddexda. Godadka waxa gala ereyo ka kooban qaybo hadalka ka mid ah. Godadkan waxa gala magaca wuu geli karaa, magacuyaalka wuu geli karaa, amiyaalka, xidhiidhiyaha, tusmahilaaji. Waa qaybo ka mid ah hadalka waynu ka hadli doonaa. Marka godka koowaad, ka shanaad iyo ka 14aad way isku bedelmaan ereyada galaa. Marka waa ereyada ku hoos qoran oo god kasta u bannaan yahay ama sharcigu u ogol yahay inay galaan. Godka labaad, saddexaad iyo afraad isma weydaartaan, way isdaba galaan. Ereyada godka labaad galaa godka saddexaad way ka horeeyaan had iyo jeer, kuwa saddexaadna afraad way ka horeeyaan. Godka lixaad ilaa 13aad ereyada galaa siday u kala horeeyaan ayay u kala galaan. Marka midba waxa gala ereyo gaara ama qayb gaara oo ka mid ah hadalka. Qaybaha hadalka iyo godka ay weedha ka galaan. magacuyaalka, tusmahilaaji, amiyeel, xidhiidhiye iyo tilmaame. Intaasi waxay wada galaan godka koowaad. Way isku bedeli karaan oo qaar ka mid way geli karaan, qaarna way wadaagi karaan. Godka labaad waxaa gala laaciyaha. Godka saddexaad yeelaha
ama cidda falka geysanaysa oo aan ahayn magaca oo ka duwan oo yeela ah ama subject. diidma kabe waa qaybta afraad buu geli karaa. marka saddexdan good sida u kala horeeyaan ayay u kala galaan ereyada mid waliba. qaybta shanaad waxaa geli karaa intii aynu hore usoo sheegnay, qaar ka mida way geli karaan iyana way wada geli karaan hadba sida ay weedhu u dhisan tahay. qaybta lixaad waxaa geli kara yeela dure, waxaynu ugu yeedhno aynu ka hadli doono yeelmaha oo object oo kale ah. meeleeye oo isna ka mida qaybaha hadalka. yeelmahadood waa qayb ka mida isna. fal meeleeye waa qayb kale. fal gargaarsi waa qayb kaloo ka mida. fal tusmo waa qayb kale iyo fal sandulle. intaasi sida u kala horeeyaan ayay weedha u kala galaan. waxaa weedha u dambeyn kara kuwa godka labaad, godka koowaad iyo godka shanaad iyo godka afraadba geli kara. way geli karaan weedha, way ka maqnaan karaan godka 14aad, godka shanaad way ka maqnaan karaan, godka koowaadna way ka maqnaan karaan, laakiin godadka way isku bedbedelmaan. marka saddexdaa god waxa wadaaga ereyadan ama qaybahan hadalka ka midka ah. magaca haddaba magacuyaal, tusmahilaadshe, amiyeel, xidhiidhiye iyo tilmaame. intaasi waa kuwa aynu godka koowaad way wada geli karaan. ka shanaad iyo ka 14aadna way wadaagi karaan ama way u guuri karaan. magaca waxaa ka mid ah cumar, geed, gabadh, raad. intaasiba waa magacyada si guud baynu uga hadlaynaa. magacuyaalka waa aniga, adiga, isaga, iyada, annaga, innaga, idinka, iyaga. tusmahilaadshe waa ereyada xoog oo kale ama aad, ma si fiican, ma si xun, ereyada noocaasa. amiyeelka waa kuwa waqtiga tilmaamaya, kal hore, shalay, beri, galabta. afafka qaarba sibay u isticmaalaan ama ay qaybta ay ku daraan u tahay, laakiin afka soomaaliga qayb gaara ayay galaan oo aan afafka kale la wadaagin siday u qiimeeyaan. xidhiidhiye waa ereyo badan oo ay ka mid yihiin iyo, ee, oo, ba, na, se, ase, ereyadaas. tilmaame waa cas, bannaan, dheer, waalan, ereyada noocaasa. qaybta koowaad waynu ka hadalnay, qaybta labaad, saddexaad, afraad iyana waynu ka hadalnay. waxaa daba qaybta labaad ay tahay laaciya. laaciye waa ereyada hadalka gees u jeediya ama laaciya ama iftiimiya dhanka ay ku socdaan. waxaa ka mid a waxa, ay, ma, mi iyo kuwa badan oo kale. yeelaha waa laba qaybood. yeelo guud oo ah hebel ayaa, aadaas ayaa ah. ama kuwa kale ee shakhsiga ah ama gaarka ah ee aan iyo aad, uu, ay, aanu, aynu, aydin, ay oo ah qof gaara ama qayb dadka ka mid oo gaara. diidma kabe waa erey an oo had iyo jeer hadallada diidmada ah raaca.
qaybaha hore waynu ka soo hadalnay. Qaybta dambe ee lixaad yeela dure ama yeela dure, yeelme, meeleeye, yeelmahadood, falmeeleeye, falgargaarsi, faltusmo iyo falsandulle. intaasi way isdaba gashaa ama siday u kala horeeyaan ayay isu daba gashaa. Ka u horeeya yeela dure waa la ayaa la yidhaahdaa. Hebel waa la dilay oo kale. Markaad la'daas ee hadalka ku celinaya qofkii hadalku ka bilaabmay. yeelme waa qofka hadalku uu ku socdo, waa objectka uu ka duwan yahay magaca iyo magacuyaalka. isagu kama baxo hadalka yeelmaha iyo yeeluhuba. yeelmuhu markaa waa i, ku, na, ina, idin. markaa waa eraya ama aniga igu socdo i, ama kugu socdo oo ku, ama nagu socdo oo na ah, ama inagu socdo oo ina ah, ama idinku socdo oo idin ah. qofka saddexaad uu ka maqan yahay oo isagu ma galo. haddii kale wuxuu noqdaa qof hore loo ogaa. haddaan la ogeyna shayga laga hadlayo ayaa gala meesha. meeleeyaha haddaynu nimaadno qaybta sideedaada waa u iyo ku iyo ka iyo kaga. waa afarta. yeelmahadood waa yeelme ama object aan indirect object aynu odhan karno. markaa waa yeelme ama qof hadalku ku socdo oo uu ka soo tallaabay qof hore. markaa kaay iyo kaa iyo kii iyo keed, kaayo, keen, kiin, kood. marka waa ereyada yimaada. tusaale ahaan wuu kuu kay sheegay oo kale, ama wuu noo kiin sheegay, ama wuu idiin kaayo sheegay. sidaasoo kale ereyada ku yimaada ee ah qof inaad wax u sheegto oo aad qof kale kasii sheegto oo noqonaya objectii labaad ama objectii qarsoona ee uu hadalku u gudbayay. falmeeleeye wuxuu ka dhigaa falka uu jiheeya. markaa waa ereyada ah sii, ama soo, ama kor, ama hoos, ama wada, ama kala. waa ereyada caynkaasa. soo qaad, sii qaad, kor qaad, ama hoos dhig, wada qaad, kala qaad, waxaasoo dhan, ama kala gur. yani sidaa doonta u dheh. waa ereyada noocaasa oo wuxuu jiheeya falka. falgargaarsi waa ereyo falka tilmaama ama xaaladda ay u jeedaan. had iyo jeer inta badan waxay ka yimaadaan magac oo nimo lagu daray. iminka wuu gobanimo hadlay, wuu raganimo hadlay, wuu nacasnimo cararay, waxaasoo kale. ama ka yimaada tilmaan oo i la raaciyo. waalan, waalani hadlay, ama waali hadlay. foojigan, foojigni hadlay. marka ereyada caynkaas oo kale. fal tusmo waa fal aan amar ahayn. waa fal tilmaan ahaan qof loogu sheegayo. waa ah oo kale, nin geesi ah. markaa amar maaha, laakiin waa fal tilmaan ahaana. waxay u kala baxaan haddaba qayb xagga hore ka qaadata ereyada kabka. marka la garaadaynayo oo way tahay, wuu yahay, waa nahay, sidaasa. iyo kuwa xagga dambe ka qaata oo ah leh oo kale. laguma amrayo, laakiin waa fal lahaansho sheegaya. og, ogol, jecel, fog. falalka caynkaasa waxay tilmaamayaan qof
arrin ah ama matalan jecel oo kale jeclow markaad tidhaa waxaad ka dhigaysaa amar, laakiin isirkii wuu ka tegayaa. Isirku waa marka uu u gaaban yahay ereygu ayuu isir yahay. Marka og haddaad tidhaa waa nin og baynu odhanaynaa ama nin wax og, waa isirka marka uu yahay. waxaynu u baxaynaa falsandullaha. Falsandullaha isna laba qaybood buu u kala baxaa, qaar horta ka qaata kabka iyo qaar gadaal ka qaata. Kuwa kabka horey ka qaata waxaa ka mid ah imo oo kale, aqoon, aal, odho. Kuwa xagga dambe kabka ka qaata waxay noqon karaan cun, hoor, duul, kor, ereyo caynkaas. 14 qaybood sidaasay inoogu dhan yihiin. waxaynu haddaba eegi doonaa weedha sidaynu u samayno ama siday u sameeyaan dadka had iyo jeer wararka sheega. Inta badan idaacadaha dadka ka warrama ayaa u badan inay khaladaadkan sameeyaan, marka dhugma la-aanta wariyaha iyo aqoon darrada. Aynu eegno tusaale. Libaaxa ayaa dilay wiilka. waxay sheegaysaa baynu nidhi inay ka hadlayso shayga ka horeeya. marka la raaciyo libaaxa ayaa, had iyo jeer aadaasi waxay raacdaa dhanka uu u kaco laaciyo. Iminka ay waxay u kacday dhanka libaaxa, waxay u kacaysaa dhanka libaaxa. Libaaxa ayaa, marka isagii ayaana laga hadlay, isagaana ah kii hadalka samaynayay. Libaaxa ayaa dilay wiilka. Libaaxa ayuu dilay wiilku. waad aragtaa marka uu isticmaalayo inaanu ahayn kan laga hadlaya libaaxa, laakiin uu yahay wax kale. Marka libaaxa ayuu dilay wiilku. haddaynu eegno libaaxa waxaa dilay wiilka. waxaynu nidhi had iyo jeer waxay hadalka ku dhammaysaa hal qofka u dambeeya ayuu dulucda geeya. aana waxay raacdaa ereyga waxa ama ay dhankay u jeedaan. marka waad aragtaa libaaxa waxaa dilay wiilka. libaaxu waxa uu dilay wiilka. waxaynu nidhi ereyga u dambeeya ayay dulucda ku sheegtaa. lama socotee baa la socdaa. marka libaaxu waxa uu dilay wiilka. waad aragtaa marka iyo uu inay kala duwan yihiin. had iyo jeer aadu waxay raacdaa cid kaste. aniga ayaa yeelay, isaga ayaa yeelay, iyada ayaa yeeshay, innaga ayaa yeelnay. yani cid walba waxay weeyaan yeelo guud. laakiin uuda ama aan ama ay ama aynu waa yeelo gaar. waa falka qofka samaynaya ama sabtiga ah oo si gaara u tilmaaman. dhugma la-aanta wariyaha iyo warxumada. waxaa jira wariyayaasha siday u badan yihiin iyagoon soogeyn inay khalad sameeyaan ama ay weedh sameeyaan khaldan oo aan sax ahayn. waxaynu hore u aragnay in ay iyo waxa ay kala duwan yihiin oo midba ay si hadalka u rogto, labadubana laaciye yihiin, ayna raacaan yeelihii ama subject. halkan waxaad aragtaa waa hadal aan ka soo qaaday wariyayaasha qaar ka mid ah ereyada ay isticmaalaan ama weedha ay isticmaalaan. waxa uu yidhi taliyaha ayaa wuxuu yidhi naga warsuga.
qofku markaanu garanayn ama qofka aan ogeyn ama qofka kale si caadiya loogu sheegaa waxa laga yaabaa inuu u qaato inay sax tahay, laakiin waa khalad. wariyaha sidaa yidhaahdana waxa u habboon inaanu israacin ayaa iyo waxu. labada erey waa laba erey oo kala jaada, laba laaciyo weeye, laba sabjagna way kala wataan. marka ereygu ma yeelan karo laba sabjad oo haddana isku jeeda ah, haddana kala saara oo midba dhan u jeedo. taliyaha ayaa wuxuu yidhi naga warsuga. haddaynu si kale u dhigno erey weedhan uu qofku yidhi, taliyaha ayaa yidhi naga warsuga, waa weer saxa, waa ta runtaa, waa ta jirta. aayadii waxay tilmaamaysaa taliyaha. weedhan kale taliyuhu wuxuu yidhi naga warsuga. labada siyoodo waad u odhan kartaa. waxay tilmaamaysaa cidda hadalka ku socdo ama qaybta u dambaysa. weedhan kale waa weedhaha wariyayaashu isticmaalaan. cisbitaalka ayaa waxa soo booqday madaxweynaha. waa weer khaldan. ayaa iyo waxa ayaa ku wada jirta. waad arkaysaa inay weer khaldantay. waa laga yaabaa dadku ma yaqaano sidiisa badan ama ma dareemaan marka ay wariyayaashu sidaa u hadlayaan. cisbitaalka ayuu soo booqday madaxweynuhu. waad odhan kartaa. waxaad kaloo odhan kartaa cisbitaalka waxa soo booqday madaxweynaha. hadalka markaad kala reebto had iyo jeer waxa haddaad isticmaasho markay raacdo isku sibay u jeedaan oo waxay tilmaamaan inay ku wada socdaan meel. ay haddaad isticmaashana aadu waxay tilmaamaysaa inay isku meel ku wada socdaan. markaa ta hore taliyaha ayaa yidhi naga warsuga. taliyaha ayaa markaa isagiibaa qofkii waxaan sameeyey, hadalka dulucdiisuna kuu ku socdo. taliyuhu wuxuu yidhi naga warsuga. waxay tilmaamaysaa ereygu siduu ku dhammaado ama halka dulucdu ku socoto, laakiin taliyuhu waxa uu ayaa iyaduna dhan u socota. cisbitaalka ayuu soo booqday. ayda may raacin marka way kala tegayaan. cisbitaalka waxaa soo booqday madaxweynaha. marka waxa iyo aaba waxay tilmaamayaan madaxweynaha. haddaynu ka baxno dhugma la-aanta wariyaha iyo warxumada, waa tusaale kale. waxay wariyayaasha qaar ama wariye yidhi labada mas-uul ayaa waxay ka hadleen heshiiskaas. waa khalad. qofku waa laga yaabaa inay dadku sax u qaataan, laakiin waa khalad. maaha wax jira. naxwi ahaana way khaldantahay. wariyaha yidhaahda iyo qofka dhegaysanayaaba afka soomaaliga way khaldayaan. waxaana loo baahan yahay in khaladka laga ilaaliyo. haddaad tidhaahdo labada mas-uul ayaa ka hadlay heshiiskaas, waa arrin furan. lianno ay waxay tilmaamaysaa qofka ka horeeya, ana waa qofkii waxaan samaynayay oo hadday ay raacdo isla isagii uun tilmaamaya. marka labada mas-uul ayaa ka hadlay heshiiskaas. waxaad odhan kartaa labada mas-uul waxa ay ka hadleen heshiiskaas. waa labadooda ayaa ay marka waad aragtaa inay labada hadal kala duwan yihiin. hadal kale ayaa odhan karaa khadra ayaa waxay canaanatay wiilkeeda. waa khalad. lianno ayaa iyo waxay meel ma wada galaan.
dadka wariyayaashana kolley waxaa loo baahan yahay inay iska ilaaliyaan khaladada iyagunbaa gala. waan u fiirsaday boqol in ka badan oo hadallada caynkaas ayaan qaarkood meel dhigay, laakiin waa un tusaale ahaan. haddaad tidhaahdo khadra ayaa canaanatay wiilkeeda, waa sax. khadra ayaa canaanatay wiilkeeda. ay oo ah khadra ayaa aadan oo raacda had iyo jeer dhanka ay u socoto hadal. ama waxaad odhan kartaa khadri waxa ay canaanatay wiilkeeda. khadri markaad tidhaahdo waxay tilmaamaysaa inay tahay qofka falka samaynaya ee sabtiga. khadra iyo khadri haddaba maxay ku kala duwan yihiin? iminka haddaad tidhaahdo wiilka iyo wiilku, midna ka abuu qaataa midna ku. marka wiilka waxa weeyaan magac wata kab oo aan ahayn qof falkii falaya sidiisa u baxan, ama yacni aan ku tilmaamayn inuu sabjag ahaan u yaallo. marka laba qaybood buu hadalka magacyada oo kale, oo matalan wiilka iyo wiilku. marka wiilku haddaad tidhaa waxaad sheegaysaa si gaara inuu yahay qofka falka geysanaya, laakiin wiilka haddaad tidhaahdo wuu noqon karaa qofka geysanaya, qofka aan laga geysanayana wuu noqon karaa, laakiin wiilku markaad tidhaahdo wuxuu noqonayaa qofka hadalka geysanaya. marka magacyada gaarka ah sida khadra oo kale, khadra iyo khadri way kala duwan yihiin. khadra way noqon kartaa qofka falka faylaya, qofka uu ku socdana way noqon kartaa, laakiin khadri haddaad tidhaahdo waxay u dhacaysaa inay tahay qofka falka geysanaya. marka khadri waxa ay canaanatay wiilkeeda. dadka qaar way yidhahaan khadra waxay canaanatay, laakiin sax waxa ku ah khadri waxay canaanatay wiilkeeda. waa khaladada badan ee ay wariyayaashu galaan, gaar ahaan marka ay israaciyaan ayaa waxay ambiyaa wuxuu ayaa waxa. wariyahaasi maaha qof war sheegi karaa, waana loo baahan yahay in arrintan oo kale laysu sheego oo laga digtoonaado. qaar badan oo wariyayaasha ka midina way isticmaalaan inay israaciyaan hebel ayaa wuxuu ama madaxweynaha ayaa waxa. marka waa khalad badan oo jira, waana in laga digtoonaada. af hooyo haddaba alfabeetka. afafka kale sida af carabigoo kale waxay leeyihiin alfabeet. alfabeetka iyo dhawaqa ay isticmaalaan waa kala jaad. alfabeetku waa sumadahoodan magac bay leeyihiin gaara oo aan dhawaq ahayn, sida jiim oo kale, oo j markay u jeedaan ma yidhaahdaan j ma yidhaahdaan, laakiin sumadda jiim bay u yaqaanaan. cayn oo kale markay u jeedaan dhawaqa ah, sumadda ay qoraan cayn bay u yaqaanaan. marka magacyay kala leeyihiin sumaduhu. marka maaha sidaan soomaaliga aynu jacaaba dhawaaqa aynu israacino. afka ruushka oo kale waa sidoo kale, sumadooda magac bay u leedahay. sumadahooduna sida kuwa af carabiga ayay kala horeeyaan, sumado tirsan oo go-aan weeyaan. afka laatiinka waxaad aragteen sida ingiriiska oo kale, sumado go-an oo tirsan weeyaan, laakiin codadka ma tiriyaan. sumadaha shaqal iyo shibane kuway hadhowto u isticmaalayaanba sumado go-an baa cid waliba ay isticmaasha. afka soomaaliga haddaba dhawaqa aynu taxnaa maaha alfabeet. hadaad u fiirsato waynu isjacburinaa. sumado dhowr jeer qoran baa jirta,
sumad 3 jeer qoran baa jirta, mid 2 jeer qoran baa jirta. yacni maaha sumada, maaha waxani. waxa weeye khaladka u weyna aynu gallo ee aynu ku sheegno alfabeet haddaynu doonayno waa inaynu sumado tirsan oo go-an oo halhala oo mid waliba magac leedahay. ha dhowto codkay doonto ha u taagnaato, laakiin waxaynu u baahannahay inaynu yeelanno sumado aynu adeegsano oo sumado go-ana, sida matalan sumadahan oo kale, kuwa norwejiga oo kale ah. cilmi baaris aanu samaysanay oo aan kolley dhowr jeer ka hadlay. shaqalada oo kale waxaynu leedahay 9 shaqal, laakiin inagu 5 baynu ka dhignaa. taxanayaashii hore ay ku jirtaa baanaynu ka hadalnay. waxaynu u baahannahay afkeena hooyo oo aynu leenahay naxwaha afkeena masaxnaa. dhugma la-aanta wariyaha iyo aqoon darrada aynu dib ugu celinno. bal hadda libaaxa ayaa dilay wiilka. libaaxa ayuu dilay wiilku. uudaasi waa qof gaar, waxay raacdaa qofka gaar ee falka si gaara u geysanaya oo wiilku. libaaxa waxaa dilay wiilka. waad aragtaa inay aada u raacayso kolba dhanka ay laaciyaha ka horeeya uu maro. libaaxu waxa uu dilay wiilka. ammaane eebe iyo kulan kale.